noloshaada maanta waa mid ku dhisan go'aanadii aad shalay soo qaadatay. Ha kuu xumaadaan ama ha kuu samaadaan, waa mid aad adigu lahayd doorashadeeda. Si la mid ah halka aad ku haminayso, waxa aad ka rajaynayso nolosha inaad hantiso, iyo gaaridda heer kasta oo ku weyn naftaada, waxaa kaa xigta keliya go'aan adag inaad gaarto. Ka xorowdo marmarsiyada iyo dib u dhigashada oo ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee qofkeen ka hortaagan gaaridda hankiisa. Go'aanada adag sidoodaba waxay abuuraan nolol fudud oo tayo leh, balse go'aanada fudud waxaa laga dhaxlaa nolol adag oo bila tayo ah. Farqigana waa doorashada qofka. Marka aad dhalinyaro tahay ee aad ugu awood iyo maskax badan tahay, ugu firfircooni iyo waqti badan tahay, ugu dhabar adeegid iyo dulqaad badan tahay, balse aadan ku baraarugsanayn intoodaba, waxaad qaadanaysaa go'aano fudud oo ah ha isdhibin, waxba kaama maqna, way iska hagaagi doonaan wax kasta.